Khabiirada isboorti ee u shaqeeya BBC-da qaybaheeda kala duwan, kuwa ka shaqeeya telefishinada iyo kuwa ka shaqeeya raadiyoga ee qaabilsan sportska, ayaa saadaaliyay horyaalka Ingiriiska intoosan bilaaban ka hor sanadkan. Bishii sideedaad ayay saadaalintan bixiyeen. Waxay u saadaaliyeen dhowr nin ayaa u saadaaliyay kooxda Chelsea inay horyaalka ku guuleysan doonto maadaama Chelsea qaab ciyaareed cajiib ay soo bandhigtay intuu hayay tababaraha loo yaqaano Thomas Tuchel. intuu hayay waxay ku guuleysteen Champions League waxayna tageen FA Cup finalka. waxaa loo saadaaliyay dhowr nin baa u saadaalisay Chelsea, laakiin inta badan waxay u saadaaliyeen kooxda Man City. kooxda Chelsea ayaa sidoo kale kaalinta labaad aad badan loogu saadaaliyay. Liverpool waa loo saadaaliyay kaalinta afraad, kooxda Man United kaalinta saddexaad baa loo saadaaliyay. balse sanadkan waxaad moodaa inay sidii saadaasha si ka duwan ay soo baxday. bal aan eegno table-ka iyo sida uu yahay iyo nimankan sida u saadaaliyeen ma saxba mase way haleeleen. khabiiradan ma la qaadan karaa in saadaashooda markasta ay saadaaliyaan kulamada qaar ee horyaalka Ingiriiska iyo marka ay saadaaliyaan sida uu kooxda ku dhameysan doonto kaalintii ay ku dhameysan doonto. midka ugu dambeeya wuxuu saadaaliyay kooxda Leicester kaalinta afraad inay ku dhameysan doonto, wuxuuna meesha ka saaray kooxda Liverpool inay soo gali doonto top 4ka sanadka soo socotay. balse waxaa moodaa Liverpool inay ku dhameysanayso kaalinta labaad haddii ay Man City horyaalka qaado. waqti xaadirkan Man City ayaa hogaaminaysa sida wada saaliyeen. Man City way saxeen, laakiin Chelsea ayay kaalinta labaad u saadaaliyeen markii la isku celceliyay dhammaantood. kaalinta labaad waa Chelsea, kaalinta saddexaad waxay u saadaaliyeen kooxda Liverpool, kaalinta afraadna waxay u saadaaliyeen kooxda Man United. laakiin marka eegtid table-ka wuu ka duwan yahay sida wada saxeen. Man City way saxeen, Liverpool waa ku qaldameen, kaalin labaad bay ku jirtaa iyadoo 3 dhibcood jirta kooxda Man City. Chelsea kaalin saddexaad, walow Chelsea laga bixi kara kaalin saddexaad horyaalka weli ay 3 kulan ay ka harsan tahay. Arsenal ma aysan soo qaadin kaalin afraad, ma aysan u soo qaadin kaalin saddexaad, ma aysan u soo qaadin, balse Arsenal hadda kaalinta afraad ay ku jirtaa. 20 kaanin ee saadaasha bixiyay Arsenal qofna ma uusan sheegin hal mar inay ku masayso xusin, laakiin kooxda Leicester City ayaa mid waxa jira hal nin baan u saadaaliyay inay gali doonto kaalinta afraad, haddana 14 bay ku jirtaa Leicester City.